cabdiwelina dhowr nin oo go'aan gaartay tala ma gaari karto hadalkiisa labadaba laba qadaf baa ka muuqday waxaan u malaynayaa niman hadda iyagu siyaasadda iska quustay oo aan rajo qabin in sidoodii oo kale u hadleen arrintaasi idinba qabato baan leeyahay hadal maasha qabteena ma ahayn odayaashu waxay idinka badnaayeen haddii ay taladii soo saareen oo idin dhegaysteen idinka iyo mas'uuliyiintii kale oo idinla midka ahayd ummad badan bay dhegaysanayeen oo meesha tagtay dhaqan leh siyaasiyiin leh cid walba leh wax gaar idinku ahaa idinka oo mas'uuliyad gaar idin saareed ma jirin madaxweynayaal hore ahaydeen oo hadda gobollada ka timaadeen oo niman odayaal oo la xurmaynaya ahaydeen rag badan oo la xurmaynayo siyaasiyiin iyo dhaqan ahna meesha waa marayeen waxaad isugu kala yeesheen oo malaha waa darajo weyneedeen waagii aad xilka hayseen baad hadda u baalkeenaysaan bismillaahi raxmaani raxiim anigoo ah ugaas cabdullaahi waxaan maanta halkan ku qabanayaa shir jaraa'id shirkaas oo jaraa'id oo daaran laba qodob arrinta Boosaaso gobolka Bari iyo arrin kale oo Garowe iga soo gaartay arrinta Boosaaso waxaan leeyahay marka koowaad waxaan taageerayaa isimada dhaqanka beeltaajiyaasha ugaaska boqorka beeltaajiyaasha ugaaska boqorka kulli isimada bari noocay doonaan ha ahaadeen raggii go'aanka soo saaray iyo raggii go'aanka ay soo saareen isimada taageeraba waan taageerayaa waana salaamaya waxaan leeyahay jazakallahu khayrum waxaad u taliseen aayihiinni waxaad u taliseen ilmihiinni waxaad u taliseen mustaqbalkiinni waxaad u taliseen deegaankiinni ninkii wax garanayaana waa idinku taageerayaa ninkaan wax aqoonna hadda cidi wax weydiin mayso qodob waxaan leeyahay nimankii tegey meeshaas waxaan rabaa haddii aan wax yar sii faahfaahiyo meeshaa waxaa jiray go'aan isima ay keeneen isimadu ay gaareen kabacdina uu dagaal kala hortegay ninka madaxweynaha Saciid Cabdullaahi Deni markii dambena nasiib wanaag uu isgartay oo qaladkii raaligelin ka bixiyey una qordhiibtay isimadii go'aankan dambe ay soo saareen waxaa tegay Boosaaso rag siyaasiyiin ah oo laba qaybood ah oo qaybina ay yihiin Cumar Cabdirashiid iyo raggii la socday iyo Faroole iyo Cabdiweli Gaas qaybina ay yihiin niman xildhibaano iyo siyaasiyiin hore wasiirro iyo xilal ka soo qabtay dalka odayaal iyaguna oo u tegay ka qayb qaadashada deminta colaadaha iyo mushkiladihii meesha ka jiray iyo inay fikirkooda ka dhiibtaan waxaa kaloo tegay niman isima ah Sanaag iyo Mudug ka socday dadka halkaa isugu tegay ujeedka loo aaday wuxuu ahaa meesha dagaal baa ka dhacay guddoon baana yiil ujeedkii loo aaday wuxuu ahaa in fikirkooda iyo taladooda iyo araahdooda wixii guddoonka ka dambeeyay wixii dhacay inay ka tala dhiibtaan tala soo jeedin bay u aadeen hadday isma yihiin ismada dhaqanka tala wixii ahaa waa ka dhageysteen hadday siyaasiyiin yihiin siyaasiyiintii talada waa ay ka dhageysteen haddii ay dhageysteen go'aamadii iyo dadkii badnaa haddii ay dhageysteenna go'aankan dambe ayay soo saareen dad badan oo baraha bulshada waxaan ku arkay si khaldan uga falcelinaya go'aanka iyo guddoonka waxaa lahaa isimadii martida loo ahaa isimadii socotada ahaa ama gobollada ha ka yimaadeen ama siyaasiyiintii socotada ahaa tala dhiibashay lahaayeen talada rag caraysan baan arkayay oo meelaha qaybtood idaacadaha ka qaylinaya oo isimadii tala nalama talagelin oo talada iyada lama yeelin khasab maaha in taladaada la qaato waa lagu dhageystay laakiin taladaada in la qaataa khasab maaha masaalaxa guud waxay u arkaan odayaashu iyo taladooda iyo masaalaxa guud ee deegaanka iyo dalka waxay u arkaan ayay ka talinayaan dhageysasho waa la xurmeeyey waa la soo dhaweeyey
waa la martigeliyey hanaankii gobi lahayd oo dhan baa loo sameeyey aad baan uga xumahay waxaana ka bixinaynaa apologize hadallada ka soo yeeraya nimanka siyaasiyiinta ee uu Faroole iyo Cabdiweli Gaas ay ugu horeeyaan ee mas'uuliyiintii dalka soo martay odayaal hadallada ay ka jeediyeen oo qadafka ahaa haddaan qaato mar qoys ishayay oo laba jifiyood oo dirirayay Faroole oo hal jifiyo reer wada ah ayuu ka dhigay hadalka Cabdiwelina dhowr nin oo go'aan gaartay tala ma gaari karto hadalkiisa labadaba laba qadaf baa ka muuqday waxaan u malaynayaa niman hadda iyagu siyaasadda iska quustay oo aan rajo qabin in sidoodii oo kale u hadleen arrintaas idinba qabato baan leeyahay hadal maasha qabteena ma ahayn odayaashu waxay idinka badnaayeen haddii ay taladii soo saareen oo idin dhageysteen idinka iyo mas'uuliyiintii kale oo idinla midka ahayd ummad badan bay dhageysanayeen oo meesha tagtay dhaqan leh siyaasiyiin leh cid walba leh wax gaar idinku ahaa idinka oo mas'uuliyad gaar idin saareed ma jirin madaxweynayaal hore ahaydeen oo hadda gobolada ka timaadeen oo niman odayaal oo la xurmeynaya ahaydeen rag badan oo la xurmeynayo siyaasiyiin iyo dhaqan ahna meesha waa marayeen waxa isugu kala yeesheen oo malaha waa darajo weyneedeen waagi aad xilka hayseen baad hadda u baalkeenaysaan laakiin oo hadlayseen iyo inaad wali u haysataan inaad xilalka haystaan bulshaduna waxay aad u tabanaysaa xilalka aad hayseen waxa aad geysateen dooga hore inaad soo kicisaan oo aad waxa horisaan hadeer oo aad dib horisaan idinma qaban arrinta inaad raalligelin ka bixisaan baanu ayaan ku talinayna haddaan intaa ku dhaafo arrinta bari waxa ay soo gaartay in doorashooyinka kuraasta Puntland kursi ka mid ah oo anigu aan beeshaan ka soo jeedo Ciise Maxamed Hoob 200 la yiraahdo kursigaasi waa loo tartamayaa habraaca doorashooyinka Soomaaliya buu waafaqsan yahay beeshay kursiga ku tartami jirtay oo wada lahayd ergooyin odayaal dhaqan oo ka kooban 5 xubnood oo civil society dhaqan isugu jiray habraaci doorashooyinka ayuu marayaa dad badan oo baraha bulshada soo dhigdhigaya qof baa la siiyay iyo reer baa loo xiray iyo nin baa xiray iyo waxaas aan maqlay arrintaasi wixii aan shuruucda iyo nidaamka doorashada iyo habraacyadii 27 December 27 iyo 1 October iyo intii ka dambeysay oo dalkan hadeer habraaciisi sharci oo guddiga doorashooyinka iyo guddiga khilaafaadka iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu ka hadlay hadda ka hor wixii aan waafaqsanayn wax qof yiri bay noqonaysaa ee wax loo dhan yahay maaha cidna laga yeeli maayo inuu cid boobo wixii Saciid Cabdullaahi laga diidayna oo madaxweynaheena inuu laga yeeli maayo Saciid Cabdullaahi wuxuu boobay kuraas senataro oo isagu boobay oo hadda leeyahay gobolay matalaan iyo dad bay matalaan isagay matalaan horta cid ay matalaan ma jirto kuraastii aad boobtay Saciid waa ku kaliya kuraastan qabaa'ilka leh qabaa'ilku wuxuu sarraale isaga ahayna ma shaqeynayaan mana shaqeyn doonaan insha Allah bidmillahi kariim cid intay soo boobto oo xamar timaado oo dadka soo boobto iyadoo oranaysa ana xoog ugu matalaya iyo ana xoog ugu qabsanaya hadda dadku laba kala xoog yarabay la tahay xoogna cid ka yeelaysa ma jirto wax isla ogola walaalnimo ah ehelnimo ah isu ribxina tala wadaaga ayaa looga baahan yahay aad iyo aad mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku celinayaa taladu geeyidi ka hooshin waa tala la wada leeyahay kursigaas cidii ku tartamaysaa ergooy musharaxiintu xaq bay wada leeyihiin musharax laga hor istaagi kara kursiga beeshiisa uu ku qoran tahayna ma jiro cid gaar ah oo hadda awood u leh inay cid gaar ah kuraasta hoose aqalka hoose u xirtana ma jirto mana la yeelayo mana la yeeli doono insha Allah bidmillahi kariim wax arin dadka qabatana maaha cadaalad darrad dilootay oo nugaal dilootay oo salka ku haysa oo qabyaaladaysan oo eexaysan oo irmaan waraabsi iyo wahalkii leh in maalin walba iyo sanad walba ay joogto u noqoto oo hore loogu kala tagay oo hore la isugu laayay oo hore loogu kala tagay maantana inay u noqoto sal u noqoto wax la qaadan karo wax la aqbalayo maaha talada dadku waa ay ka dhaxaysaa dadka ay ka dhaxaysaana talada wada yeelan doona aad iyo aad baan idin salaamayaa mar labaad iyo mar saddexaad bulshaweynta Soomaaliyeed
waxaan leeyahay doorashaa la aaday gobolladii baa la aaday ilaahay tan ceebteenna ha asturo soomaalina ceebteeda ha asturo soomaaliyay xilliga hadda ah dadku waa soo jeedaa indhaha la soo kala hayaa cid boobi kartaa ma jirto dadkana hadda qodobadii u dambeeyay halkan laga soo saaray waxay ahaayeen in la isxurmeeyo beesha kursiga lagu xurmeeyo beeshuna ay macnaha qof maaha ee beeshu waa dadka wadaaga musharaxiintu xaq ayay u leeyihiin inay kursigooda u tartamaan xaq ayay u leeyihiin ergadooda inay u dhex u yihiin oo ay u qaybsanto xaq ayay u leeyihiin dhaqan ahaan in dhexdhexaad loo noqdo xaq ayay u leeyihiin inay ummadda matalaan iyaga oo ah dadka mudan oo isu taagay oo muqdarka ah haddii uusan qofku dhimir la'ayn ama aan cillado kale oo qofka lagu dhaliilaya uusan jirin ama cillado kale oo lagu reebaya ayay jirin xaq ayuu qofku wuxuu leeyahay inuu doorashada ka qayb qaato hadduu xildhibaan rabo hadduu madaxweyne rabo iyo haddii kaleba xaq ayuu u leeyahay aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad idin salaamaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu